Saturday News oo ah TV madax bannaan oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa uu warbixin ka diyaariyey Somaliland. Warbixintani oo salka ku haysa xuska sanad guurada 18 May. Somaliland waxay u dabaaldegaysaa xuska 18 May maalintii ay la soo noqotay xorriyadeeda. A sea of red, white and green filled the Independence Square as thousands of Somalilanders marched past the dais in jubilation. It's close to 3 decades since Somaliland broke away from Somalia. ciidamada kala duwan ee qalabka sida waa kuwa u dabaaldegaya 18 May. Somaliland waa mid ku taala Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika. Indhaha caalamku waxay si weyn ugu hayaan Somaliland. Somaliland ayaa samaysatay dastuur iyo astaan gaar ah. Warbixinta waxaa lagu xusay in Somaliland qabsatay doorashooyin qof iyo cod ah, kuwaas oo aanay badi ka dhicin Geeska Afrika. Other diplomatic recognitions will always depend about how Somaliland perform its economy, its social, its military, its knowledge base. The rest of it will come. That one I have no. dabaaldegani waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. President Muuse Biixi reached out to Somalia, urging that the two countries work together. 80s. Citizens, however, managed to reconstruct without international community's help. The breakaway state is now riding on that success to lobby its neighbors for recognition. And we are here to urge the international community. This is the high time to recognize the Republic of Somalia.